madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma si ayaa xilka madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed iyo waliba xubno kale oo kala socday labada gole ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa la hadlay warfidiyeenada waxa uu ugu horeyn tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarkii xarunta golaha shacabka ee Muqdisho waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday in dagaalka lagula jiro al-shabaab uu noqon doono mid la dardar galiyo isagoo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday wada shaqeyn qoysaskii ay ka geeriyoodeen ciidankeenii shuhadada ahaa ee geesiyaasha ahaa ee ka hortagay fashiliyey kadibna baabiyey cadowgii damacsanaa dhibaato xoog leh u geystaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogto inaan ugu baaqo ka qaybgalka dhammaan laga wada qaybgala dagaalkaas. madaxweynaha ayaa dhinaca kale soo dhaweeyay tilaabadii wasiirka amniga xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guulood oo iskaga casilay xilkaasi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Cabdiweli Sheekh Maxamed uu istiqlaaladiisa ka aqbali doono. wasiirkeenii hore ee amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guulood xalay baaqaygii ahaa isbeddelkii la keeno asagu si badan uga jawaabay يريد وإذا كانوا يحملوا على شغلين كان سوودي وسوودي وصل الصومالي أهلون أريد أسمع الواقعيين والجيران وكمان دعوة هذه الحوار وشيء تطلع وأن تقابلنا وأن نقابلنا وأن الواقعيين مثلا وقوعا أيضا إن رجل بدر ومن كسر كل صدام معلم في أفكار اللي أبوها الناس اللي بنيان شيء madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn waxa uu tacsi u diray dadka Jamhuuriyadda Djibouti uu kaga tacsiyay khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday maqaaxi ku taal gudaha dalkaasi. حسن كاف عبد الرحمن أحمد تيفي عالمي بوتلان مقدشو.